wasiirada xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabeelle wasiiradooda ciidamada qalabka sida wariyayaasha fanaaniinta waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu maanta waxaan soo dhaweynay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle mudane madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow maamul goboleedkan madaxweynaha ka ahayd waxaan leenahay ku soo dhawow asagoo nabada laakiin waxa maanta jira murugo qaracan calool xumo dadkeeni oo la halaagay oo la baabi'iyay oo aad moodid dambas laga dhigay waxaan taasi u direynaa ummadda Soomaaliyeed oo ku dhimatay magaalada Muqdisho dadka ku baabay hooyooyinka la xasuuqay aqoon-yahanada da'yarta la xasuuqay mas'uuliyiinta la xasuuqay culumadiinka la xasuuqay waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto Ilaahay waxaan leeyahay inta dhaawaca Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dhaawaca ka fujiyo inay caafimaad Ilaahay siiyo intii dhimatayna Ilaahay u naxariisto ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay war ka istaaga lama fiirsan kara qaracanka maalin kastaba hor yaala dadkeena baaba'aya dhibaatada taagan waxaan leeyahay walaalayaal hadda ka hor markii ay dadkeena la baabiyay anigu waxaan ahaa abwaan waxaan idhi sidii reeqooma ludnimo kaan qariban quraadkana qalad ka sheegon qalbiga lahayn jalbaab isku qariya ayagoo qiyaano wada caruurtana qarax u dhiibay jannada u qora ee qaabka fircoon la Soomaaliya iska qabo waxaan leeyahay Soomaaliya iska qabo wayna baabi'iyeen hooyada hurdi wayda hulibkeedu haad ku cunay hoygay deganaynda shisheeye harsanayaan kuwii horaadkeeda nuugay hubka u sitaan harista gooyeen iyo araxday ku hayn jireen inaan duco laga helin waa hubaal maanta waa hubaal waxaan leenahay aan ka kacno aan iska dulqaadno dulliga waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdi Xuseen Geedi si ugu gudbiyo madaxda iga sarreysa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu